تسليما كثيرا وهورين مدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي قدومياشا لبضا حسبي قدومية عرو إيه قدومية فيصل علي قدوميها أما مدحوينها دهبشيل محمد سعيد قدومياشا لبضا قولي ولاها حكومة وزيرة salaadiinta haweenkeena sharafta badan iyo saxaafadda iyo culimada diinkaba dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh maanta maalin taariikhi weeye oo jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo shacabkeedu joogo gudaya dibadba ah waxa weeye maanta halkan waxa lagu furayaa sida uu sheegay baashe injineer baashe awil baan leeyahay sida uu sheegay shirkadii Hyundai ama waxa weeye Dahabshiil Group Hyundai waa laga sheekeeyay taariikhdeeda runtii waa shirkad ballaaran oo adduunka oo dhan marka la eego xagga baabuurta ku jirta layamka ugu horeeya way maantana waxa farxad inoo ah in caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dahabshiil Motors laga furay oo waxa weeye baabuurta qurxaha badan waxa weeye wadada iyo safety-ga ba sida uu ka sheekeeyay master awil runtii waxa weeye wax badan ka tari karta waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigu ku hadlay afka odayaasha dhaqanka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay waxyaalaha muhiimka ah ee hadda aanu ku aragnay baabuurta waxa kamid ah sida wasiirkii gaadiidku uu sheegay steering-ku waxa weeye waa bidixda weeye safety-ga wax badan bay ka yareynaysaa taasna runtii aad baan ugu faraxsanahay baabuurtii hore ee jirtayna waqtigoodii iyo waqti badan baynu soo dhaafiyeen kuwan cusub ee maanta waxa weeye zero mileage kana waxa weeye runtii wax loo baahan yahay waa horumar weeye shirkadaha adduunkuna waa ku soo dayanayaan shirkadda kale soo socotay Samsamna moobiladana iyadana waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii maanta taariikh bay u tahay reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay war nabadgelyadana ha la ilaaliyo waxa weeye wax kasta oo markaa soo kordhana si midaysan ha loo wajaho runtii maanta halkan waxa iga muuqda madaxweynihii iyo labadii gudoomiye inta badan way is ag fadhiisan jireen oo way qosli jireen oo muraayadii wadanka weey maanta Cabdiraxmaan Cirana halkaas uu fadhiyaa Faysalna koonuu fadhiyaa madaxweynaha dhaxdu fadhiyaa waxa weeye dadku wax badan bay idinka sugayaan doorashooyin baa la idinka sugayaa inta aan ku darsado maanta maalinta ku xigta waxaanu doonaynaa idinkoo farxayo meel wada fadhiya waxa weeye inaanu idin aragno intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh